saaka deegaanka aata la yiraahdo kamida gobolka Boqol aroortii hore ay weerar ku qaadeen nimanka khawaarijta marka maxaa khasaare dhacay khasaaro runtii horta madaafiic ay shacabka iyo xiriyaha ciidankaba ay ka kala deynayeen bay marka hore ku galeen in badan madaafiic bay ku garaacayeen kadibna ciidankii lugta ayaa galay runtii ciidan badan ayaa joogay oo ciidankeena SNA ga qaybta Boqol ka tirsan iyo ciidanka Liibooliska ee deegaanka Soomaalida ayaa joogay runtii si fiican ayaa la iskaga caabiyay dhibaato badan waa loo geystay ayaga inkastoo madaafiic aan habqal lahayn ay ku garaaceen haddana kadib waa la soo eriyay oo xagga gudaha ayaa loo soo eriyay haddana goobihii ciidanka ma ahan ilaa 10 kilomitir oo dhanka gudaha ayaa loo soo eriyay inkastoo ay jiraan khasaarooyin shacabka ay soo gaarsiiyeen oo miinooyin xataa dadka madaafiicda marka ay ka firxadeen oo dhanka degmada Ceelbird dad badan oo u firxaday xataa oo mootooyin iyo dad la qaraxdo miino u dhigeen ay jiraan laakiin haddana alxamdulillah khasaaraha sida ay taaka ay weerarka u soo qaadeen aad buu yaraa dhibaatada u badan ayaga ay gaadhay meydkoodan ilaa haata ugu daadsan yahay dad rayida aad sheegayso inay miinooyinkaasi la kaceen inta la xaqiijiyey imisaad ka war haysaa ee dhintay iyo dhowr qof baa la sheegayaa wiil mooto wata waa la sheegayaa dhowr ruux oo kale oo mataqaanaa ayagana waa la sheegayaa inkastoo khasaaraha uu aad u yaryahay iyo sida ay taaka ay sameeyeen nimanka khawaarijta cadowga bini'aadanka qofna u naxaynin laakiin khasaaraha shacabka aad buu yaryahay magaalada gudaheeda wax ku noqday ma jiro xataa baabuur qarax ah bay la galeen oo mataqaanaa ay magaalada dhexdeeda ku qarxiyeen laakiin khasaaraha taaka ayaga ay u badnaa aad baana mataqaanaa loo gaarsiiyey jab badan waxaana u tacseenayaa ummadii saaka uu dhibaatada ay ka soo gaadhay baan halkan tacsiye uga diraa in intii ku dhibantayna ilaahay naxariista janno uu ka waraabiyo intii dhaawacantayna alla u boogadhayo dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay in deegaamada xuduudda ku yaal iyo degmooyinka xuduudda ku yaal dhibaatada badan ay ka jirto in si degdeg gurmad loo gaarsiiyo oo mataqaanaa ummadda wixii loo qaban karo xagga nolosha iyo ciidamada difaacaba in lagu adkeeyo oo mataqaanaa la gaarsiiyo gaar ahaan dowladda koonfur galbeed oo ay ka tirsan gobolka Boqol bay degmooyinka xuduudka ku yaal ay ka tirsan yihiin dhibaatadana ayada ay u badan tahay ay ka dhacayso kusoo noqotay marka in labaduba wixii lala gaari karo lala gaadhaan aad halkan aan ka codsanayaa runtiina saaka si aan filaynin baa ku dhacay waxa islaahayn madaafiicdan iyo waxaan marka ku garaacdaan tii shal daraa dacdo kale aad samaysiin laakiin dhibaatadii saaka soo gaadhay ilaa hata ciidankii uu ku maqan yahay oo uu sii daba socdo ilaa waxaa la sheegaya dhowr iyo 10 kilomitir oo gudaha in laga sii daba socdo meydkoodan oo meel walba daadsan wararka qaar baa sheegaya in xataa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Itoobiya ay ka qayb qaateen wararkaasi ma xaqiijin kartaa maya weli arrintaasi ma caddo ciidana sentry meesha ugu tageen baa mataqaanaa walaalow nimanka la dagaalamay ciidanka ayaana magaaladii ka soo saaray ilaa haatan sii daba joogo waxa diyaarad oo wax gaarsiisay ama wax ku ridinay ayagana hubka iyo madaafiicda aan shacabkana laga turinin meeshii rabaan ay iskaga ridayaan watay iyo qaraxyada iyo minooyinka la soo galay runtiina ciidanka SNA iyo ciidanka Liibooliska deegaanka Soomaalida ayaa